Weli waxaannu baadigoob ugu jirnaa helidda Shifa meelay ahaataba. Waxaan soconnaba maanta waxaannu la kulannay alaab la yaabay oo qurux badan. Bal u fiirso alaabtan siday tahay. Maxaa la yidhaahdaa magaceeda? Waa runtii nafaqo oo aanan weligay ku hawaysan inaan maalin aan cuni doono. Waxay ka bixi jirtay musqulaha agagaarkooda, meelo runtii aanan qurux badnayn. Laakiin halkan waxaan ugu imi iyadoo la beeranayo, qurux badan, la suuq geynayo, oo aadan malaysan karaynba macaankeeda. Mushroom sida loo beerto runtii waa arrin cajiib ah oo u baahan in baaritaanno iyo barasho iyo u diyaargarow sida galleyda iyo mooska iyo bariiska baan u beeranno. Geedii baan beertay. Waxay noqotay markaa inaan tijaabiyo sida loo harvest gareeyo. Sida loo harvest gareeyo runtii waaba sida sisinta iyo galleyda iyo fruitka noocyadiisa kala duwan iyo qudaarta aanu mar kastaba isleenahay beeraheena ka soo go'een. Markaad fiirisidna runtii caafimaadka laga helayo qudaartan mushroomkan ee geed jinni ama magacyo kaloo maxaan ku rahdaa aanan qurux badnayn aan ugu yeeri jirnay maxaa yeelay meelaha laga heli jiray ayaan runtii waxay ahaayeen meelo aad iyo aad aanan u qurux badnayn. Laakiin hadda runtii waaba geedka ama markaan suuqa tago adiguse ma gadataa, ma taqaanaa sida loo nidaamiyo, sida loo kariyo, maxaad ku karsataa. Runtii waa wax la yaab leh sida loo qurxiyo cuntada ugu macaynhayo ukunta quraacda iyo cunno maxaa la dhihi jiray sida u dhadhan kugu yeelayo iyo vitaminska iyo mineralska ka buuxa. Cunto kale uma baahanaysidba haddii aadan weli cunin. Cuntadan waxay ka mid tahay Shifa Foods ama Shifa Diet oo caafimaadka buuxa laga helo. Ha moogaan oo hana ka maqnaan qudaartan.